back to my channel Shakur 252 vlogs. waa muuqaal kaliya maanta hobla qorshaha waxa weeye wax qorshaha maanta haynaa ma jiro ka waxa sameynaa shaqadeeni Uberka ama Walmartiga aynu wixii aan ka shaqeyn karana ka shaqeynaa. Let's go guys. hadda marka waxaan ku sii wajahanahay waa inaan gaariga gaas ku shubo ama petrol kolba sidaad garanaysid kadib markaas inuu shaqadeeni bilaabnaa. Let's go guys, come with me. aad iyo aad ayaan idinka mahad celinayaa sidaad muuqaaladeeda u daawateen, aad subscribe tay saarteen ayaa beershiidaad taasi waxay tahay dhiirigelin. soo markaa hadda waxaan sameynaynaa gaarigan gaas ku soo shubaynaa kadib markaa ama Uber baynu eegi doonaa hadduu suuqiisu fiican yahay ama delivery-ga ayaan qaadi doonaa insha Allah. Let's go guys. soo halkan ka dhaqaaqaynaa xaafadahana dhex marayo Soomaaliun baa degan. apartmentiyadan oo dhan guryahan halkan ka soo muuqdo oo dhan Soomaaliun baa degan. xaggan bidix u geli doonaa gaarigaas iska eegina xagga soo socda ku kala noo soo daba jiraa waa iska sugaynaa. maxaa ka qaldan inuu naga soo socdo waxa wadada wada marayo oo dhan waa Soomaali because area-dan waa area-da Soomaalidu ay degan yihiin. xaggana ka laabinaa. Oh my god. so guryahan oo dhan Soomaali baa degan. so hadda gas station-ka ayaan ku sii wajahanahay. gas station-ka tegaynaa. Let's go. traffic light kan ayaynu bidix u leexan doonaa. okay light kuna fasaxay. so gas station waxba inooma jiraba. laba gas station ayaa isku ag yaala. mid waa tan xaggan inaga qaban doontaa midigteena Pakistan in iska leeyihiin baan malaynayaa laakiin badan anu waxa kaga shubanayaa gaasta kuwash sababta Pakistantii Hindida ma aamino ama biyo kuugu shubaa ma isla biyo inkastoo da wadan oo sharci ka jira aynu joogno laakiin haddana iskuma halayn karo. Hindida iyo Pakistanta ma aamino. so gas station kale intigna quick trip intigna xagana midig laabanna kadib marka aan joognaaba anta qabow baa jira wallahi qabow saayida jira. okay gas station ka watan banaankaasan dhiganaya. okay electrolytes, B&C vitamins, and zero sugar. Right now, buy 3 and save 10 cents per gallon. And for the holidays, Zoa is delivering giving energy. For every 3 units sold, Zoa will donate $3 to our neighbors. Fuel your holidays and your community with Zoa Energy. Hey, by the way, our quickly cookies are on sale right now. Soft and chewy in a variety of flavors. Oh, people love these things. Get a bunch.
Everybody's favorite Quick 3 cookies on sale right now. هو سايد وي بنانكو اوكي gaariga gaasti baan ku soo shibanay soo marka waxaan eeginaa uberka suuqiisina eeginaa sababta hadii kale waxay noqonaysaa in gurigii ku noqdo jacket weyn aan soo qaato si aan delivery-ga uga shaqeeyo sababta delivery-ga kolba wala daadegaya waxaan eeginaa delivery-ga doonayna ka shaqeynaa marka waa in jacket adag soo xidho waa in gurigii dib ugu noqdo ay noqonaysaa aan jacket adag soo xidho. So let's go guys. Jacket adag inaan soo xidho weeyaan. أصحاب السيارة قسين جاكيت كلمة سو حرناي قبو بدن بجرا متى خلا بدار مليت كوفيد من بدن حرنا بدار لي موسم وقت لكن كوفيد بس كشعلنا نحضر بدار لكن مليت ما يقول حاجة زي شوجان أوكي كوفيد بس كشعلنا نحضر marka we hit the road now waxaan sameeynaa maadaama code weyn aan soo xidhay alaabteeni waan qaad qaadaynaa xaqana sidan hore ay ku sheegay golof sidaydina way ugu jiraan marka abkaynu furanna hadda sawir buu weydiinayaa marka waa inaan sawir galo okay we know for my marka sawir buu weydiinayaa sawir laan ma shaqeynayo let's go guys waxaan ku sii dhawaanaa Walmart-gan u sii dhawaanaa kadib marka halkaas in order-ka si aan markaaba u qaadno marka maanta waxaan jeclaan lahaa in order oo 3 saacadood inuu siiyaba ama 2 saacadood oo xidhiidha xaafadeydii waa ka sii baxayaa gaadhigani maadaama traffic light-ka imika falaadhaas maadaama yellow tahay oo flashing yellow ay tahay waxa weeye kan hore inuu xagga hore si yara gala ay ahayd laakiin uu iska istaagay حقن هورا dhaxda yar baa la sii istaaga marka flash yellow ay tahay kadib markaas ma gelinaa حقن iska istaagina ilaa order fiican aan ka helina marka order fiican aan helo markaas in qabanayna order baan sugayaa sida arkisiin ba orderadii baan sugayaa marka maanta dhawayna sida uu rogrogo kan sidaado ku anfacaya aan baan qabsanayaa sababtoo shopping buu badan yihiin soo asxaabta qaaliga sidan u sugayay Walmart-ga alaabtii la qaadayay waxay u badatay inaad adu soo shopping gareysid sababtoo dadkii meesha ka shaqeynayay holiday bi badan wada galeen maadaama Christmas-ka ay tahay marka aniguna shopping waan nacab inaan soo shopping gareeyo sababtoo alaab 80 xaba
ama 40 xabo ama dhowr iyo 40 xabo ayaad maanta dhan Walmart-iga sidaa kolba shay u raadinaysaa soo markaa waa nacaba inaan shopping-ka qaybta shopping-ka inaan ka shaqeeyo oo anigu soo shopping gareeyo waxaan jecelahay qaybta pick up-ka ee kaliya alaabta aad gaarigaaga lagugu rarayo aad qaadisid qaybta shopping-ku way dib badan tahay sababtoo ah alaabta qaar bad waayaysaa qaar ba meeshii ka dhamaan kara waqtigii baa kugu badan kara intaad raadinaysid markaa waan iska xidhay Uber-kiina suuq badan ma laha we change the plan-kiina bedelaynaa kadib waxaan sameynaynaa koob shaaha xagga Soomaalidan ka soo qabsanayaa markaa Uber-ku hadduu ilaa hadhowto la hagaago Uber-ka ayaan furanaynaa suuqiisa markaa la socod wacan wanaagsan hadda waxaan teginaa goobaha ganacsiga Soomaalida ayaan koob shaaha ka soo qabsanayaa let's go guys so xaggana midig u geli doonaa maanta wadada aad biis u tahay laakiin jawigu qurux badan yahay innaba caadi ma aha jawiga noocan waa jecelay markaan horaan idinku sheegay markuu cirku daruuraha yar leeyahay daruura markuu leeyahay aad baan u jecelay laakiin markuu cirku uu qalalan yahay yani oo mid caada lahayn ama mid daruura lahayn oo blue kaliya yahay ma jecli laakiin cirku markuu caad iyo daruur yar leeyahay aad baan u jecelay yani sidii macna roob oo kala roobna dhamaahay waa baraf fadhu tolo baraf noqonayaan daruurahaasi baraf da'ayay noqonayaan waxaan inuu bidix u leexan doonaa kadib markaa waxaan ku sii wajahanay goobihii ganacsiga Soomaalida xaggaas oo shaah u doonanayo okay goobihii ganacsiga Soomaalida nimanay sidan hore idinku ku sheegayba markaa imika waxaan soo qabsanaynaa shaah baan soo qabsanaynaa waxaan u jeedi doonaa meesha Soomaalida soo galay حاجة شعب تخبصنا وحقادنا كوب شاها يبور ها صاحبي وتر qofkii horeeyay bayna soo codsaday on qaadayna hada marka wuxuu inoo jiraa 10 minute buu jiraa walaa uu fogiyay 10 minute buu jiraa marka hadda waxaan ka sii baxayaa meeshii Soomaalida ka baxayaa شاهي وحبان كسوي رعب عبي لا توقف كاسين تجينا 10 minute والله وير فوقي Turn right on 3rd Street North. Okay, thank you. سو توقف كيفان كسي صعدا wuxuu ii jiraa hadda 9 minute kadib jawiguna maanta aad buu qurux badan yahay hadda cadceed yar baa soo baxday inkastoo markii hore yara madow ay yara ahayd يعني عركو وضرورة بدن لها هذا لكن سي عدد بصاير بحد ما كانوا كفتين ويوحنا رجينا مقال كنا قروح بدنا ندونا هنا علي مرينا seven minutes دربوا دوني wadadu sii furanta hadina inagu xidhmin okay hadda magaalo kale soo galnay imka halkii aan ka soo dhaqaaqiyay waa magaalo halkan kalena waa magaalo kale Turn right on Division Street. soo markasta waa inaad wadada banaysaa waa inaanad wadada xidhin imika gaarigaas oo kale haddaan halkaa hore istaagi lahaa wadadii baan ka xanibayaa marka waa inaad gawaarida wadadaa maraya waa inaad u banaysaa soo waxaan samayn doonaa traffic light-kan inuu midig u laaban doonaa after 4 minutes markaa meeshii waan joognaa okay waan nimanayba xaggan ka qaadanaa kadib qofka xaggan ka soo bixi doonaa emergency light-kan shidan doonaa waxaan u sheegi doonaa inaan nimanay I have arrived. Hi, hello. Hi, Alicia. Yes, come in. How are you today? I'm good, and you? Yep, thank you. I'm good. Enter your drink. Thank you, sir. Yeah, thank you. Have a good Have a day. good day. Yeah.
soo qofkii horreeyay baan dhignay sida arkisiinba order kale suginaa soo maanta suuqa uberku aad buu liitaa markaa waxaan sameynaynaa waan iska suginaa intayna soo codsanayaan soo intaa markaa waxaan doonay maadaama aan kasoo ag dhawaaday downtownka magaaladeeda bal downtownkan idin soo yara dhex marinaya siduu u eegayay downtownka inkastoo holiday ay dadku wada galeen uusan cidhiidhi badan lahayn downtownka magaalada ayaan idin soo yara dhex marinayaa ila arka insha allah muuqaalka oo downtownka inagoo dhex marina markaa dhowr sakadood baynu mari doonaa ama dhowr wado aynu dhex mari doonaa aynu ma garanaysaa dhowr jeer downtown aad u weyn ma aha laakiinse dhowr wado oo downtownka ka mid ah ayaynu dhex maraynaa markaa kamarada waan sii jeedinayaa ila arka markaa downtownka magaaladeedu siduu yahay hadda traffic lightka ayayna haya lightkan ayaynu bidix u geli doonaa kadib markaa downtownkii waan joognaaba sidaadan bidix ugu galno waan joognaa downtownkii hadduu intaa aan downtownka sii dhex maraynana uu ordari soo qabsadana waan qabsanaynaa haddii kalena waan idinka soo yara gaadhsiinayaa downtownka magaaladu siduu yahay okay laynka midigtiisii qabsan doonaa because midig baynu leexan doonaa soo halkan uu ka bilaabmaa downtownku okay bildinadan buu ka bilaabmaa soo waxa ku yaala meherada iyo waxyaabahaas ku yaala baarar iyo waxaas markaa xaggan uu ka bilaabmayaa downtownku soo traffic lightka labaad ayaynu midig u geli doonaa markaasay soo dhex maraynaa soo lightku inoo sii furan yihi traffic lightku inoo furan yihi okay traffic lightkan labaad campaign waxay sameynaynaa midig baynu gelinaa soo xaggana ka leexanaa okay downtownka waa kan markaas madowgan ka yara baxna sugi madowgan baan ka yara baxnaa okay downtownka halkan ka bilaabmaa waa cidla soo maaha because holiday baa la galay waxa weeye dadku holiday bay galeen waxa weeye waqtigii oo christmaskii weeye markaa fasax baa la galay soo waxaan sameynaynaa xaggan haddana bidix usii gelinaa iminka basaskani waa meesha transportationka oo magaalada ka dhex shaqeeya marka xaggana istaaginaa kadib bidix baynu gelinaa okay xaggana waxa weeye bangi weeyaan bangi weyn weeyaan magaalada ku dhex yaala soo waxaan sameynaa haddana traffic lightkan ayaynu bidix u geli doonaa kadib sidaasaan haddana usoo wareegi doonaa xaggana bidix u geli doonaa laakiin lightku hayna fasaxo traffic lightka ayayna haya okay lightku na fasaxay xaggana midig u geli doonaa bidix u geli doonaa yaro qurux badan yahay downtownka ma sidaa uma sii faal xumaa laakiin dad badan oo soconaya oo lugeynaya inkastoo xilliyadii winterka ay tahay qaboobaad ay tahay oo dadku aanay qabowga soconin laakiin lama odhan karo yacni waa downtown oo aad cidhiidhi u ah ama biisiya waa cidla dee dhowr gaadhi anigii dhowr gaadhi oo kale ma meesha dhex maraynaa sida arkisiinba soo xaggana hotel baa ku yaala waa arkisiin bildinadan waa bildino qadiimiya dee laga yaabaa inay waqtiyo badan ay dhisan yihiin jiilka jiil generation to generation ay dhisan yihiin baa laga yaabaa marka sidaasaan usii dhex socon doonaa sidaasaan u soconaynaa waa arkisiin meeshu waa cidlo xaggana istaagi doonaa stoobta haddana waan dhaqaaqi doonaa soo downtownka markaa waa intaas
dhowr waddo kalena waan idin soo dhex marinayaa muuqaalku aad buu u dheeraanayaa laakiin haddii muuqaalada sidana aad jeceshiin fadlan ii soo sheega sababtoo ah inaad ii soo sheegtiin ayaa fiican soo dib hore u gal dhowrya okay xaggana istaagina haddana waan dhaqaaqinaa haddaa muuqaalada noocana aad rabtiinna ii soo sheega waan soo duubayaa so dadka waa inaad iska ilaalino sababtoo ma ogin inay nagu soo dhaqaaqayaan iyo in kale so traffic light-ka haddii dhaafno downtown-kii waan ka baxnay traffic light-ka haddii dhaafno downtown-kii waan ka baxnay markaan waxaan samaynaynaa bidix bin traffic light-ka u gelinaa haddana waan kusoo noqonaynaa dhinaca kalean ka soo marayaa traffic light-kana bidix u geli doonaa waddadu way noo sii furan tahay okay qof ay soo codsaday okay u-turn baan sameynaynaa markaa already qofkaasay soo qaadaynaa xagga u-turn misaan u sameynaynaa so waan joognaaba asxaabta halkan qofka ka qaadaynay hello hi come in how are you today? Good. Good. Yeah, thank you, sir. Have a good day. Yeah. qofkii kalena halkaasaan dhignay so let's go guys meel baadiyaa baan keenay so qofkii labaad buu ahaa ayaan qaadno maanta suuqa aad buu u liitaa dad badan ima soo qaqabsanayaan hadda markaan magaaladii kasoo yara baxnay magaaladii dib ugu noqonana hadda nagu soo biir fadlan hadduu channelku kugu cusubiyey nala soco ilaa mustaqbalka insha allah waxyaabaha oo aan doonayo uberka markaad wadid lacalla haddii waddankii aad joogtid laga yaabaa mar inaad maraykanka iman doontid allahu aclam yaa og haddii aad joogtidna taladan way ku anfacaysaa hal tala ayaan idin sheegayaa oo markaa dadka customerka aad wadid inaanad marka koowaad su'aalo personaliya aanad weydiinin qofka magaciisa labaad iyo magacaaga koowaad iyo waxyaabaha inaanad weydiin kow sidoo kale inaanad yacni qofkii aanad odhan waad qurux badan tahay oo kale iyo dharkaagu wuu qurux badan yahay ma garanaysaa cadar udgoon baa kaa uraya waxyaabahaas oo dhan laguma dirsan qofkan keliya inta aad gaadhigaaga saarayn waa inta last destinationkiisa aad geynaysid waxa weeye markaa su'aalaha personalkaa fadlan ha isku dayin inaad qofka weydiisid sababtoo ah ma wanaagsana marka koowaad marka kalena shaqadaada uma wanaagsana sababtoo ah customerska way ku report garayn karaan waxa weeye markaa waxyaaba aan lagu dirsan ha isku qaadin cadar udgoon baa kaa uraya iyo dharkaagu way qurux badan yihiin iyo adaa qurux badan iyo waxyaabahaas laguma dirsan iyo maad guursatay ma single baa tahay ma married baa tahay oo personal questioniska fadlan isku day inaad qofka passengerka gaadhigaaga saaran inaad weydiisid waxyaabo general baa laga hadlaa sida cimiladoo kale waxaa odhanaysaa oo maanta cimiladu way qabowdahay shalay baraf baa da'ay maanta laga yaabo inuu baraf soo dii doono waxyaabahaasaa laga hadlaa laakiinse waxyaabaha aan lagu dirsan ha isku qaadin ha ismaqiiqin faarax siiba faaraxyada soomaalida u badan uberka fadlan ha isku maqiiqin oo yani waxaan lagu dirsan qofka inaad weydiisaa waa qalad
gaariga nadiifinna gudihiisa gaariga gudihiisa nadiifinna baashir baan ku nadiifinna أصحاب سدار كسين قاري هذا وانا نظيفناي ولا نحفر لي كرام من كورة بريهن ما نظيفين موت فهذا واحد كبحنا ماشي ونظيفين تقارية سو مركب جدها بيو سو ميران حقنا هذا سوق لي وحي قشنني وحاسة كنظيف سنة ساعة يعني واحد استاذ قب سنة قاري حقنا بس ودح قلني هدونا هذا قيبت النظافة دي وحاسة ذا سكن نظيفني ودنكين wuxuu ku fiicnaa in meelastaas oo kala loo furo sababta lacag badan oo laga sameeynaya waqti badan kuma lumayo de xagana midib gelina kuwan baa naga markaa waan sugaynaa dhulkuu madoobaaday asxaabta qaaliga waa 4 barkii galabnimo haddana waxaa la moodaa 7 habeenimo la moodaa soo asxaabta intaasan muuqaalka ku soo gabagabeynaa sababtoo ah dhulkii waa madoobaaday aad iyo aad ayaad ugu maadsatay daawashada muuqaalkan insha Allah way nooyo muuqaalkan muuqaalka xiga see you next time